الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بان سبحانه وتعالى umahadnaqaya amaana u jeedinaya inuuna weydiinaya dhammaanteen inuu ina waafajiyo rabbi subxaana wa tacaala waddadiisa toosan in aynu marro aynu ku sugnaano ilaa ilaahay subxaana wa tacaala aynu la kulmayno. sidii aynu u ballansanayn baaraka allahu fiikum waxay ku saabsan tahay kelmaddeenani imaamkii weynaa alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala siiradiisa. culimada taariikhdooda iyo siiradooda in la raad raaco oo dib loogu noqdaa waa arrin muhim u ah qofka muslimka ah noloshiisa diineed iyo tiisa adduunyaba. waxaana ku jira arrinta noocaasa faa'iidooyin badan. faa'iidooyinkaasi waxaa ka mid a qofka muslimka ahi walaalihiisii ka horreeyey, iimaanka uga horreeyey, cilmiga iyo toosnaantana uga horreeyey, inuu taariikhdooda barto, wanaaggoodana wax ka maqlo. arrintaasi oo marka ay ugu yar tahay sababaysa inuu jeclaado dadka muslimiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii u jeclaado. in qof ilaahay daraaddii loo jeclaadaana waa mid ka mid a iimaanka, waana mid ka mid a waxyaabaha lagu helo iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa wanaagsan. waxaa kaloo arrinta noocaasi ay sababaysaa qofka muslimka wanaagyadiisa marka uu maqlo ilaahay subxaana wa tacaala inuu raxmad iyo dembi dhaaf uu u weydiiyo, sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaanay dadkii hore wanaagsanaa dadka ka daba yimi. waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi kuwii ka dambeeyey dadkii hore wanaagsanaa waxay odhanayaan ilaahay ou noo dembi dhaaf annaga iyo dadkii iimaanka nooga horreeyeyba. walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbanaa inaka ra'uufu raxiim. waxay odhanayaan ilaahay ow qalbigeega ha gelinin cuqdad iyo calool xumo aan u hayno dadkii wanaagsanaa ee iimaanka nooga horreeyey. faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid a qofka muslimka ahi inuu raadraaco taariikhda iyo siirada iyo maalmihii ay mareen dadkii wanaagsanaa ee ka horreeyey. arrinta noocaasi qofka muslimka ah himadiisa iyo hankiisa ayay kor u qaadaysaa, haddii ay tahay xagga cilmiga iyo jacaylkiisa iyo dalabkiisa, iyo hadday tahay xagga cibaadada iyo allow dhowaanshaha subxaanahu wa tacaala. walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu uga waramay in badanoo ka mida taariikhda iyo siirada dadkii wanaagsanaa ee ka horreeyey, qaar ambiye ahaa iyo rasuul ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray, iyo qaar ahaa dad saalixiina sida luqmaan oo kale, iyo kuwo kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim. caawa biidni illaahi subxaana wa tacaala in kooban waxaynu ka sheegi doonaa taariikhda iyo siirada imaamkii weynaa shaafici raximahu llahu tacaala. imaamu shaafici siiradiisa markaynu ka waramayno, qaabkaynu uga waramaynaa ma noqon doono in aynu taariikh ahaanun u dul marro. waxaynu isku dayi doonaa biidni illaahi tacaala meelo ka mida taariikhdiisa iyo siiradiisa inaynu dul istaagno si aynu uga qaadanno cibrooyin, duruus iyo casharana si aynu uga baranno, cilmi iyo aqoon, cibaado iyo khayr iyo wanaagna si aynu uga kororsanno. taasina waa ujeeddada u weyn ee looga warramayo aimada taariikhdooda iyo siiradooda. dadkii hore wanaagsanaana loo sheegayo wanaaggooda iyo khayrkooda. imaamu shaafici waa abu cabdillaahi, magiciisuna waa maxamed ibnu idriis ibnu lcabaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saa'ib ibnu cubayd ibni cabdiyaziid ibni haashim ibnu lmuطalib ibni cabdimanaaf. sidaasi ka muuqata abtirsiintiisa intaasi aynu ka sheegnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
abtirisiin ahaan waxay isugu yimaadaan cabdumanaaf. wuxuu ahaa imaamu shaafici raximah allahu tacaala shaksi ka mida qabiilada quraysh ee nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam uu ka dhashay, fadliyada badanna loo sheegay, nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam uu inoogu waramay sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa in ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay. taasina waxay tilmaamaysaa fadliga iyo wanaagga ay leeyihiin, dadka kalena ay dheer yihiin. alimaamu shaafici raximah llahu tacaala isagoo quraysh ka mid ah, haddana qadarka ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku dhacay inuu ku dhasho meel aada uga fog quraysh deegaankeeda oo ah maka iyo hareeraheeda. waxa uu ku dhashay magaalada la idhaahdo ghaza, magaaladaasi oo ku taala falastiin, xagga koonfureedna ka xigta waddanka masar. waayo dhulka islaamku berigii hore dowlado ma kala ahayn, kala xidhxidhan oo xuduudo kala leh, oo qofku u baahan yahay baasaboor uu ku socdaalo iyo fiise dalku gal loo xisaabiyo loogu ogolaado waddankaasi inuu galo. qofka waxaa markaa u ahayd baasaboor inuu yahay qof muslima, amaba se inuu yahay qof muslimiinta la degan. imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxa uu dhashay taariikhdu markay ahayd 150 bishii rajab. imaamu shaafici raximah llahu tacaala saasay aanu sheegnay waxa uu ku dhashay sham, gaar ahaan dhulka maanta loo yaqaano falastiin, gaar ahaan magaalada la yidhaahdo ghaza, markay taariikhdu ahayd 150 alhijri bishii rajab. imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxa uu ahaa yaraantiisii agoon, waxaana barbaarisay hooyadii, sababna ugu ahayd inuu cilmiga barashadiisa uu jeesto. halkaasi laba qodob oo muhima ayaa ku jira. qodobka koowaad waxa uu yahay imaamu shaafici raximah llahu tacaala hooyo wanaagsan ayaa ka dambeysay oo caqli badan, geysayna goobaha tacliinta iyo waxbarashada. intii ay tabantaabin karaysayna aada iyo aada u tabantaabisay oo hawsha noocaasa ku dhiirigelisay. taasina waxa ay muujinaysaa hooyada wanaagsani qiimaha ay u leedahay qofka, waxaanay xusuusinaysaa qof kasta oo damacsan inuu guursado ubadka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka rajaynayo wakhtiga doorashada uu leeyahay iyo ikhtiyaarka hooyo fiican inuu u dooro. hooyadaasi oo ilaahay subxaana wa tacaala sabab uu uga dhigo hagaagooda iyo toosnaantooda, aqoontooda iyo tarbiyadooda. hooyada wanaagsan maaha mar walba ta aqoonta leh. haddii hooyadu aqoon leedahay, shaki kuma jiro arrinta noocaasi qeyb weyn inay ka tahay taabagelinta ilmaheeda iyo tarbiyadayntiisa, iyo inay u barbaariso si fiican caqli ahaan iyo aqoon ahaanba. iyadoo arrinta noocaasi ay muhim tahay oo hooyada aqoonta lihi mar walba hadday aqoonteeda ka shaqaysiiso, hooyada bilaa aqoonta ilmaheeda ay uga fiican tahay. haddana hooyadu xataa iyadoona aqoon lahayn waxa ay noqon kartaa hadday tahay hooyo fariida, isla markaana soo jeeda, hansarana leh, doonaysana ilmaheedu inuu tarbiyo fiican si fiican inuu u barbaaro u koro, waa dadaali kartaa ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo tala saaranaysa. waxa ay samayn kartaa ilmaheeda inay la xidhiidhiso goobaha waxbarasho, iyada oo waraysi tegaysa oo goobaha u fiican ilmaheeda u dooraysa. waxaa kaloo ay samayn kartaa ilmaheeda inay ku kaantaroosho oo ay ku maamusho aqoonta iyo cilmiga barashadiisa. arrinta noocaasiyana ay ku samayso kormeer joogto ah, isla markaana ay u diyaariso ilmaheeda waxyaabaha uu u baahan yahay ee u suurtogelin kara in noqdo ilmo aqoon leh, isla markaana ku barbaara tarbiyad fiican. imaamu shaafici raximah llahu tacaala hooyadii aqoon waxbay ka lahayd, laakiin may ahayn gabadha cilmi badan oo lagu sheegay inay ahayd gabadh caalimada, laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala siiyey
caqli badan oo ilmaheedaasi sabab ugu noqda meel fiican inuu maro. arrinta kale waxay tahay haddii waalidku uu doonayo ilmihiisu inuu noqdo ilmo aqoon yeesha, tarbiyadiisuna ay fiicnaato, waa inuu ku dadaalo asbaabta keenaysa an yansha'a طifluhu aw waladuhu الصagiir tanshi'atan صaxiixa, in ilmihiisa fiicani uu barbaaro barbaaris fiican, isagoo ilaahay subxaana wa tacaala tala saaranayo mar walbana og ciddii ilaahay uu hagaajiyaa inay hagaagayso. haddana isagu waa inuu ku dadaalo asbaabta waxaa ka mida adducaa, inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilmihiisa u baryo. dadka saalixiintaana nebiye iyo kuwo kaleba waxaa ka muuqda siiradooda iyo taariikhdooda awlaadooda inay u ducayn jireen oo ilaahay subxaana wa tacaala ay u baryi jireen. laba arrimood bay taasi tusinaysaa. arrinta koowaad waxay tahay waalidku wanaagga ilmihiisa uu la doonayo inuu caqiidaysan yu aaminsan yahay awooddiisa iyo xeeladiisa inaanu ku keeni karin, ee ilaahay subxaana wa tacaala u tala saaranayo, rabbina subxaana wa tacaala arrintaasi uu kaalmaysanayo, waana ta ducada keenaysa. waxaa kaloo arrintaasi ay ka turjumaysaa calaamad ay u tahay waalidkaa ilmihiisa wanaagga ugu ducaynaya sida wanaagga uu u jecel yahay ilmihiisana uu la doonayo. alimaamu shaaficiyu raximahu llahu tacaala isaga oo yar oo da-diisu 2 sannadood aanay dhaafin ayay hooyadii ka soo kaxaysay dhulkaa ka fog deegaankiisa ee uu ku dhashay, waxaana ay keentay ee ku soo celisay magaaladii Maka oo deegaankii ay deganayd qabiiladiisa oo ah Quraysh. arrinta noocaasi ah ujeeddo weyn bay ka lahayd. ujeeddadaasi waxay ahayd inaanu lumin nasabkiisa sharafta badan. waxay doonaysay dadkiisii inuu ku noqdo uu noqdo qof abtirsiintiisa la yaqaano, isaga laftiisuna uu barto cidda uu ka soo jeedo ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhaliyey uu ka beeray. arrinta noocaas oo ah xifdu الnasab wa tacliimu اlawlaad linasabihim waa arrin aada iyo aada muhiim u ah, in ilmaha yar loo ilaaliyo nasabkiisa, lana baro ilmaha nasabkiisa. waayo qofku inuu barto nasabkiisa iyo abtirsiintiisa waa arrin muhima. axkaam badan oo sharciya ayaa ku xidhan. axkaamtaasi waxaa ka mid a axkaamtii dhaxalka, oo waxaynu ogsoonahay waxyaabaha la isku dhaxlo waxaa kow ka ah annasab, in labada qof abtirsiin ay wadaagaan, qofka dhintay iyo qofkan dhaxlaya. sidaasoo kale qofku hadduu abtirsiintiisa yaqaano iyo qaraabadiisa, xagga guurka markay noqoto waxa uu ka baydhayaa cidda maxramkiisa ah oo guursan maayo. haddiise aanu aqoon waxaa dhici karta qof ka mida dadkii xaaraanta ka ahaa ee nasab kaga xaaraantimoobay inuu guursado, waa mid dhici karta. nasabka in la barto waxaa kaloo ku xidhan silatu raxim, qofku inuu xidhiidhiyo qaraabadiisa. walihaada baa ilaahay subxana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim dadka inuu ka dhigay qabaa'il iyo shucuub, iyadoo ay tahay xikmadda ku jirtaa si ay dadku isu bartaan, ay isu aqoonsadaan. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay sida xaakim uu ku wariyay mustadragiisa min xadiidi cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhu, qofku inuu abtirsiintiisa barto. tacalamuu min ansaabikum maa tasiluu bihi arxaamakum, abtirsiintiina waxaad ka barataan in aad ku xidhiidhisaan qaraabadiinna. waayo qofku haddaanu garanaynba cid ay qaraabo yihiin siduu u xidhiidhin karaa? marka awlaadda yaryar waa in la baro nasabkooda. waxaa khalada in la yidhaahdo arrinta noocaasi waa qabyaalad, oo ilmaha yar lama barayo qabiiladiisa iyo cidda uu ka soo jeediyo abtirsiintiisa. oo la yidhaahdo marka lagu weydiiye yaa tahay waxaad tidhaahdaa, sida dadka qaarkood oon diinta aan fahmin ama si khaldan u fahmay ay yidhaahdaan, waxaad tidhaahdaa muslim baan ahay. waxaana dadka qaarkood arrinta noocaasiya ku kalifaa qabyaaladka carar. laakiin waxaynu leenahay taa dawadeedu waxay tahay in ilmaha yar marka la barayo nasabkiisa iyo abtirsiintiisa waa in loo sheego oo laga dhaadhiciyo ujeeddada laga leeyahay.
iyo hadafka arrinta noocaasa looga socdaa inay tahay inaanu cidna ku colaadin cidna ku jeclaan ee ay tahay arrimaha aynu sheegnay iyo axkaamtaasi ku xidhan in uu ku garto isla markaana fulintooda uu adeegsado sabab uga dhigto waana sidii ay samayn jireen dadkii wanaagsanaa alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala wuxuu ku soo noqday magaaladii maka ee ahayd deegaanka qabiiladiisa oo ah quraysh hooyadii iyadoo da-diisu aad ay u yar tahay markiiba waxa ay ku dartay dugsi qur-aan ama malcaamadda qur-aanka lagu barto wax maalamay haysan qoyskaasi wuxuu ahaa qoys faqiira oo maal adduunyaan haysan xataa hooyadii waxay weyday waxay macallinkii ay siiso oo ay kaga bixiso ilmaheeda yar ee qur-aanka baranaya fiigii ama rusuumtii bishii laga qaadayay caruurta laakiin arrinta noocaasi may niyad jebin oo may odhan waxaan kaga bixiyo ma haye guriga hay fadhiyo siday maanta yeelaan hooyooyin badan ama waalid fara badan ilaahay bay subxaana wa tacaala tala saaratay ilaahay baana faraj u furay waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib inankeedii ay waxbarashada kula dadaalaysay oo alimaamu shaafici raximah llah maxamed ibnu idriis ilaahay waxa uu ku arsaaqay xifdi khaariqa oo wixii uu maqlaba inta badan uu qaybayo dusha uu ka qabanayo iyo dakaa faham badnaan waxaa markaa dhacaysay macallinku caruurta kale marka uu wax u marinayo cashar amabase u yeedhinayo imaamu shaafici raximah llahu tacaala dhegaysigaa uu dhegaysanayo inuu ku qaybo oo ku xifdiyo taasina waxa ay keentay macallinkii ilmaha yar inuu jeclaado maalin maalmaha ka midana wuxuu yidhi adiga inaan wax kaa qaadaa xalaalba mahaba adiga wax biloo haba yaraatay aan kaa qaadayaa ma jirto bilaash baan wax kuugu dhigaya ilaahay baa farajkaasi u furay hooyadii iyo ilmaha yar ee agoonka ah macallinkii ka dhaafay kharashkii waxbarasho uu ka qaadi lahaa isaga laftiisu wuu ka faa'iiday oo wuxuu noqday alimaamu shaaficiyu raximah llah kabiirkii buu noqday ama horjoogihii ardaydiisa macallinku markuu ka maqan yahay ka ardayda casharka u mariya amaba se ugu soo celiya isla markaana macallinkiisa caawiya ayuu noqday alimaamu shaaficiyu raximah llah iyadoo da-diisu aada u yar tahay oo 6 sannadood aanu dhaafin ayaa qur-aanka kariimkaa dusha uu ka qabtay arrintaasina waa arrin aada iyo aada muhiim u ah in caruurta lagu horeysiiyo xifdu lqur'aan qur-aanka inay xifdiyaan waayo wixii yaraan lagu bartaa qofka wuu ku daabacmaa si fududna qofku uma ilaabo oo qofku markan uu yarya wuxuu ka dhigan yahay safxa baydaa xaashi cad ayuu ka dhigan yahay marka wixii lagu qora wuu ku oolayaa haddii wax fiican lagu qorana waa ku oolaya haddii wax xun lagu qorana waxaa xun ayaa ku oolaya imaamu shaafici raximah llahu tacaala yaraantiisaasi ayuu qur-aanka uu ku xifdiyey waxaanay taasi xusuusinaysaa waalidka ubadkooda inay kula dadaalaan xifdu lqur'aan sidaan tilmaamay waayo ilmahay taasi anfacaysaa xataa caqligiisa iyo idraagiisa fahamkiisa iyo garashadiisa ayay arrinta noocaasi ka caawinaysaa ilmaha waana arrin mujarab oo la tijaabiyey ilmaha lagu horeysiiyo xifdu lqur'aan inuu ka faham bato inta badan aqoonta kale iyo culumta kalena uu kaga horeeyo caruurta kale aan lagu horeysiin xifdinta qur-aanka waalidkiisana biidni illahi subxana wa tacaala ilmahaasi waa anfacayaa fi dunya waalaakhira waxaa laga yaaba dadka qaarkood inuu shaydaanku ku idhaahdo haddii ilmahaad ku horeysiiso xifdinta qur-aanka aqoontii kale ayaa dhaafaysa oo qeyrkii ayuu ka hadhaya qur-aanku qofna qeyrkii kama reebo qur-aanku qofka xifdiya qeyrkii ayuu dhaafiyaa ilaahay baa subxaana wa tacaala qofka xifdiya mid yar iyo mid weynba ku kor yeelayo dada kale kaga sarraysiinaya siduu yihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin rawahu muslim ilaahay kitaabkan qur-aanka ah dad buu kor ugu qaadaa
وكوا قرآن كالرمية حفظية دشك قيبة كو عمل فلاء وكو دقمة ويضع به آخرين كوا كلنا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كا قرآن حن أو أي كقاتين موقف حن أو أي كيستاجين أيو إلهي سبحانه وتعالى وكد اللية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مركي وقرآن كحفظيي waxa uu jeestay ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa uu ku tuuray xagga barashada afka carbeed suugaantiisa gabayada iyo mahmaha iyo waxyaabaha la midka ah waxaana alimaamu shaaficiyu raximahu llahu tacaala uu u tegey qabaa'ilkii carbeed ee magaalada ka baxsanaa miyiga ayuu u baxay waxaana aada iyo aada uga bartay afkii carbeed iyo gaar ahaan gabayga iyo adabkii guud ahaan oo waxa markaa suugaanta loo yaqaano ah ayuu aada iyo aada u bartay imaamu shaafici raximah llahu tacaala ilaahay baa subxaana wa tacaala markii dambe qalbigiisa ku tuuray in u leexdo xagga barashada fiqiga oo alaxkaam sharciya axkaamu afcaali alcibaad addoomaha afcaashoodu wixii axkaam ay leeyihiin ee ku jira kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasiina sabab bay lahayd uu ka sheekeeyey alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala sababtaasi waxay ahayd maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa uu yidhi waxaan tirinayey gabay kadib nin idaba socday oo baqal saaraa ayaa ila hadlay buu yidhi ninkaasi waxa uu ku yidhi mithluka yadhabu bimuru'atihi fi hada markuu la yaabay ninkan xifdigiisa iyo fahamka ka muuqda ma adiga oo kale ayaa dadnimadiisa ku baabiinaya gabay iyo waxaan macno lahayn ayna anta min alfiqh halkaad ka taagan tahay wuhi fiqiga alaxkaam alsharciya ilaahay subxana wa tacaala uu soo dejiyey inaad barato arrinta noocaasi waxay ku samaysay alimaamu shaafici raximahullah isbedel la yaab leh waxaana uu gaadhay go-aan aada iyo aada u qiimo badan waxa uu go-aansaday ashaaficiyu raximah llahu tacaala inuu fiqiga barto mowqifka noocaasa laba arrimood baynu ka baranaynaa arrinta koobaad waxa ay tahay qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu doono inuu wanaag waafajiyo rabbi subxaana wa tacaala cidda uu doonaya ayuu usoo mariyaa qof ka yar qof ka weyn qof ay is yaqaaniin qof aanay is aqoon qof isaga ka aqoon badan qof laga yaabo isaga inuu ka aqoon yar yahayba ilaahay subxana wa tacaala tawfiiqdiisa cidduu doono ayuu soo mariyaa arrinta noocaasiina waxay ku dhalinaysaa qofka muslimka ah cid kasta oo la talisa oo talo fiican siisa taladaa fiican inuu ka qaato oo aanu eegin qofka talada siinaya laakiin uu eego talada lafteeda mar hadday talo saxa tahay waa inuu qaato nabigeenu calayhi salaatu wasalaam abu hurayra radia allahu canhu isagoo ilaalinaya xoolihii zakada waa kii shaydaan suuro bani aadam isu soo yeelay 3 habeen soo weeraray si uu u dhaco wax ka mida xoolaha zakada habeenkii u dambeysay uu qabtay uu yidhi nabigan calayhi salaatu wasalaam kuu geynayaa wuxuu yidhi hay geyn waxbaan ku barayaa buu yidhi wuxuu barayna waxay ahayd habeenkii marka uu sii seexanay aayatulkursida haddii uu akhriyo in xagga ilaahay subxaana wa tacaala mid ilaaliyo uu ka helaayo shaydaanna aanu usoo dhowaanahayn warka noocaasa abu hurayra markuu u tabiyu u gudbiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu ku yihi sadaqaka wahuwa kaduub run ayuu kuu sheegay isagoo been badana ah beenawaas isagoo ah laakiin maanta run ayuu kuu sheegay marka qofku xataa haddii uu yahay beenaa leh laakiin ay caddaatay maanta waxaanuu sheegay inuu run yahay runtaasi laga tegi maayo inuu beenaale yahay awgeed looga tegi maayo sida xadiidkaasi uu inoo faa'iideynayo laakiin waa in la helo wax caddaynaya qofkii aan wanaagsanayni waxaanuu sheegay inuu yahay wax sax arrinta kale aynu ka baranaynaa waxa ay tahay qofku ubadka muslimiinta
meelahaasi uu kula kulmaayo iyagoo wax sameynaya buu arkayaa, wuxuu arkayaa iyagoo wax akrinaya ama odhanaya, iyagoo heesaya, iyagoo wax kala sameynaya. waa in u arkay inay yihiin ubad ay dhaleen dad walaalihiis. siduu ilahay yihi subxana watacaala inama almu'minuuna ikhwa. marka waa inuu siiyo talo fiican. waana siduu ahaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, oo talooyinka fiican kuma gaar yeeli jirin dadka waaweyn. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dadka waaweyn iyo dadka yaryar labadaba waa la talin jiray. imaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala waxa uu u tegey isagoo go-aan ku gaadhay inuu barto culuum shariica. waxa u tegey sheekhii maka markaasi u weynaa oo khaalid zanji magaciisa la odhan jiray. isaga ayaanu xalqadiisii fadhiistay. intaasi kadib waxaa warku uu kusoo gaadhay magaalada madiina oo aynu naqaano maka inta ay u jirto inuu joogo alimaamu malik raximah llahu tacaala, malik ibnu anas imaamu daari lhijra. waxaa markaasi uu go-aansaday inuu safar u galo imaamu malik si uu cilmiga uga barto. imaamu malik raximah llahu tacaala ayuu ugu tegey magaalada madiina, waxaana uu ka qaatay oo uu ka bartay cilmiga, isagoo ka akhristay kitaabkiisa qiimaha badan ee la yidhaahdo almuwada. imaamu malikna raximah llahu tacaala markuu arkay xifdigiisa iyo fahamkiisa iyo sida uu yaqaano alluga alcarabiya, aadna uu ugaga fog yahay laxniga iyo si khaldan inuu ugu dhawaaqo u akhriyo kelimaadka carabiga ah, aada iyo aad ayuu usoo dhoweeyey. watafarasa fiihi khayran, waxaana uu ka fishay wanaag mustaqbalkiisa uu la kulmi doono. dardaarano qaaliyana wuu siiyey, dardaaranadaasi oo sababa oo suurtogeliya biidn illahi subxana wa tacaala inuu noqdo mustaqbalkiisa cilmi iyo diineed iyo toosnaaneed mid wanaagsan oo qiimo leh. waxaan dhaafay oo dib aan ugu noqonayaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala qadiyadda ku saabsan isagoo yar inuu miyiga tegey. waa arrin aada iyo aada muhim u ah. maantana dadkeenu aad ay ugu baahan yihiin, dadka magaalooyinka degan, gaar ahaan dadkiina yurub jooga, ubadku aada bay arrintaasi ugu baahan yihiin. waana sidii carabi ay yeeli jirtay weligeedba. waana arrin ku dhisan daraaso iyo cilmi baadhis xeel dheer, manaaficdeeda iyo waxtarkeeda la ogaaday. dadkeenuna berigii hore waa yaqaaneen, oo marka xilliga fasaxa iskuullada la gaadho ubadka miyiga ayaa loo saari jiray. faa-iidooyin ku jira waxaa ka mida taa uu ka helay alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala, oo ah inuu bartay afkiisii alluga alcarabiya si qiimo badan oo heer saraa inuu u bartay. waxaa kaloo ka mid ah, waxaynu ogsoonnahay nolosha miyigu ay ka adag tahay nolosha magaalada. ilmaha yarna maaha in lagu barbaariyo raaxada nooca u dambaysa, wax allaaliyo waxa uu doonayo oo dhan loo suurtogeliyo. arrinta noocaasi waxay ku yeelan kartaa athar salbiya, raad xun bay ilmaha ay ku yeelan kartaa. waayo cid u damaanad qaaday ma jirto ilmahan mar walba noloshan wanaagsan inuu helayo oo sidan ay ugu soconayso. axwaashu waa isbedeli kartaa. qaninimada faqri baa ka daba yimaada. reer magaalnimada waxaa laga yaabaa reer miyinimo inay ka daba timaado. qof bristol joogaa waxaa laga yaabaa inuu reer miyi noqdo. aqdaarta ilaahay baa subxana wa tacaala dhulka ka shaqaynaysa. arrinkuna waa sida ilaahay uu doono subxaana wa tacaala, ee maaha sida ay dadku doonayaan. marka ubadka nolosha adag waa in wax laga baro. taasi dadnimadooda iyo gaaraan hadday inama yihiin raganimadooda ayaa arrinta noocaasi ay ka qeyb qaadanaysaa. cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxyaabaha dadka u dardaarmi jiray bay arrintaasi ka mid ahayd, in dadku ay nolosha badakh uu ku jiro, tarafka faraha badan iyo raaxada markaa xaddhaafka ah inay iska ilaaliyaan. oo qofka noocaasi xataa uma adkeysanaya cibaadada. waxaa laga yaabaa soomkii inuu adkeysan waayo. waxaa laga yaabaa saas oo kale salaadii, gaar ahaan qiyaamki iyo taagnidu haddii ay dheeraato inuu adkeysan waayo.
waxaa laga yaaba inuu adkaysan waayo qofkaasi xataa aqoontii oo uu sabri kari waayo uu fadhii kari waayo wuxuu odhan jiray cumar ibn khataab radia allahu canhu ikhshawshanuu tamacdadu ikhshawshanu macnaheedu waa maxay yacnaa dad adagoo dee nolosha adeegeeda iska xejin kara noqda tamacdadu nin macdi la odhan jiray oo ahaa nin aada u adag oo u adkaysta howlaha iyo dhibaatooyinka adduunyo yacnaa ninkaa sifadiisii yeesha weeyaan macnaheedu marka arrintaasi waa arrin aada iyo aada muhiim u ah maanta carruurtii waxay u baahan yihiin inay bartaan luqadii carbeed oo innaga haddaynu muslimiinta nahay luqadeenna koobaad barashadeeduna ay waajib tahay sida ay sheegaan ahlucilmigu sida sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale raximah llahu tacaala waayo barashadii diinta islaamka ayaa qofka kaga xidhan diintii in la bartaana waa waajib siduu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam talabu lcilmi fariidatun cala kulli muslim wixii barashadaa diinta ee waajibka ay ku xidhantay isaguna waajib buu noqonayaa wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waxa wixii kugu waajibay aanu kuu suurtoobahayn ilaa aada samayso isaga laftiisuna waajib ayuu kugu noqonaya sidaasoo kale waxay u baahan yihiin ubadku in la baro luqadii ay u dhasheen lafteeda deegaanadooda inay bartaan nolosha dhulkoodana inay la qabsadaan aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa in badan oo ka mida waalidka qurbaha ku nool oo ubadkooda keena dalka iyadoo qasdigoodu uu yahay iyo ujeedadoodu arrintaasi aynu sheegnay alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala imaamu malik markii uu ka qaatay cilmigii uu doonayay inuu ka qaato iyadoo arrintaasi arrin muhimayna xusuusinaysa oo ah qofku inuu cilmiga u yeesho talaqi oo culimada uu ka qaato oo casrigaa iyo waktigaa uu joogo culimada u waaweyne uu gaari karo waa inuu cilmiga uu ka barto haddii culimada waaweyn qofku aanu gaari karinna ardaydooda iyaga tooska uga qaatay haddii aanu kuwaasi gaari karinna famaa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu wixii aan la wada gaari karin lagama wada tago ee cidda uu isleeyahay aqoon bay kuu faa'iideyn karta ay kuu kordhin kartaa qofku cilmiga waa inuu ka barto alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala imaamu malik dabadii haddana wuxuu galay safar dheer oo cilmi doonis ku dhisnaa wuxuu u socdaalay xagga iyo baqdaad xifdigiisii faraha badnaa iyo fahamkiisii sarreeyey kuma kalifin inuu isu bogo ama se uu kibro uu yidhaahdo aniga un hadda aqoonta ha layga bartaanu cid kale uma baahniya xataa culimadiisi waxay isagoo da-diisu aada ba u yar tahay ayay yidhaahdeen waad fatwoon kartaa waad gaadhay cilmiga waad ka gaadhay darajo aad ku fatwoon karto laakiin arrinta noocaasiya kuma degdegin kumana dhiiran alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala tawaaduciisu aada iyo aada buu u badnaa iyo dhul isudhigiisu kibirka iyo isla weynida iyo naf u boggana aada iyo aad buu uga fogaa alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala wuxuu u socdaalay haddana baqdaad waktigu maaha wakti ay jiraan diyaaradaha maanta la raaco ama tareenada dheereeya ama gawaadhida noocyooda kala duwan xilligaasi ma ahayn xilli ay jireen waddooyinkan mucabadka ah si deg dega oo dhaqsaa in lagu socon karo loo diyaariyey dhulkuna aada iyo aad buu u kala fogaa laakiin cilmiga ayaa alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala aada iyo aada u jeclaa oo markii la weydiiyey ka waran cilmiga sidaad u jeceshahay oo aada cilmiga ugu hamuuntaa imaamu shaafici raximah llahu tacala wuxu uhi cilmiga marka aan maqlo xubnahayga oo dhami waxay jeclaadaan inay sida dhagaha oo kale noqon lahaayeen oo ay maqli lahaayeen cilmiga waxaan ugu dadaalaa buu yidhi sida qofka aadka u lexa jeclada badan ee weliba gacanta adagi maalka waxa weeyaan iyo xoolaha uu ilaashado ee uu ugu dadaalo waxaanan cilmiga u dalbaa buu yihi gabadha ilmaheedu uu ka lumay sida ay u raadiso oo kale ilaahay baa subxaana wa tacaala qalbigiisa geliyey cilmi jacayl waa ka yidhi isagoo gabyaaya
سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا dhulka dharar iyo gudubba waan u mari doonaa buuli laba midkoodun bay noqon doontaa ama hadafkaygan gaari doonaa waa inaan cilmiga barto caalima noqdo amaba se anigoo dhulkaygii ka maqan ayaan dhiman doonaa fain talifat nafsii falilaahi daruhaa wain salimat kaana arujuucu qariiba haddii naftaydu ay sidaasi ku baxdo anoo cilmi raadinaya meel fiican bay martay haddii ay badbaadana noqosha waa iska dhowdahay oo xagga ilaahay baa subxana wa tacaala goor dhow loo noqonaya alimaamu shaafici meesha la dhahdo baghdad markuu tegey wuxuu halkaasi uu kula kulmay moxamed ibn lxasan ashaybani moxamed ibn lxasan ashaybani waa saaxibu abi xaniifa fiqi badan buu hayay kutub aada u tiro badanna waa haystay waana qoray imaamu shaafici raximah اllahu tacaala aada iyo aad buu uga faa'idaystay moxamed ibn xasan moxamed ibn xasan haddaynu in yar taariikhdiisa ka bidhaamino saaxib abi xaniifa wey waa ardaygii abu xaniifa laakiin caqiidadiisu caqiido toosan bay ahayd waa min ahli الsunة wاljamaca min atbaaci salaf ridwan اllahi calayhim laakiin wuxuu ahaa min madrasati ra'yi buu ka mid ahaa madrasada ra'yiga abu xaniifa madrasadiisa way naqaano madrasat ra'y waa madrasad markaa xadiidka iyo adilada ka fogeyd alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala moxamed ibn lxasan ashaybani markii cilmiga uu ka qaatay umuu noqon muqalid sidiisoo kala noqdaa ama sidii madrasadiisoo kala noqdaa saaxiba ra'yin masale kastoo uu u sheego xadiid buu garab dhigi jiray axaadiidana waa yaqaanay oo imaamu malik baabuu ka yimi sida aynu sheegnay marka haddii masaladaasi xadiidka ay waafaqdana waa ka qaadin jiray haddii kalena waa radin jiray safarka uu imaamu shaafici baghdad ku tegay faa'iidooyin aada iyo aada u tiro badan baa ka soo baxay faa'iidooyinka muhimka ee ka soo baxay waxaa ka mid ah annahu jamaca bayna alfiqhi walxadiid alimaamu shaafici wuxuu kulmiyey fiqigii iyo xadiidkii ayuu kulmiyey waa ka yidhi alimaamu axmedu raximah llahu tacaala fiqigu waa qufullaa buu yidhi ilaa alimaam shaafici raximah llahu tacaala ilaahay uu noo soo diray imaamu shaafici raximah llahu tacaala wuxuu isku darsaday fiqigii ahlu ra'yiga oo ka qaatay intii adilada waafaqsanayd iyo xadiidkii ay hayeen ahlulxadiidku saasaanu ku noqday fiqigiisu fiqhu ladila wa fiqhu lxadiid fiqi ku dhisan adilada fiqi ku dhisan xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam culimada markaa cilmiga uu ka qaatay si aynu sheegnay muqalid uma noqon ka dhigaa hadaladoodii sidii qur-aanka oo kale ama xadiidka oo kale sida ay yihiin in fara badan oo ka mida atbaacu lmadaahib dadka madaahibta ku abtirsada ee raaca ama ha noqdo shaafici ama maliki ama xambali ama xanafi ha noqdo bal culimadiisa wuu ku khilaafay wuxuu arkayey ilay macsuumiin maaha wixii ay adilada ku khilaafeen isagoo isla markaa ilaalinaya xurmadooda iyo haybadooda ixtiraamkii macalin arday uu ku lahaana marnaba aan ka tegahayn maadaama waxa uu ku khilaafayba uu yahay wax istinbaad ku saabsan iyo ijtihaad iyo masaa'il fiqhiya iyo axkaam ee masaa'il alcaqiida walmanhaj aanay ahayn imaamu shaafici raximah llahu tacaala kitaab buu qoray uu ku ururiyey masaa-isha u arka sheekhiisi maxamed ibn xasan ashaybani inuu ku khaldamay wakadalika imaamu malik raximah llahu tacaala masaa-ishii uu ku khilaafay imaamu shaafici raximah llahu tacaala iyadana kitaab ayuu ka qoray safarkaasi alimaamu shaafici uu ku tegay baghdad faa-iidooyinka ka dhashay waxaa ka mid ahaa dad qiimo badan oo isaguna uu ka faa'iiday iyaguna ka faa'iiday ayuu halkaasi kula kulmay dadkaasi waxaa ka mid ahaa alimaamu axmed raximah llahu tacaala oo la odhan karo waa ardaydii u qiimo badnayd
imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu lahaa. imaamu axmed raximah llahu tacala sidaynu naqaano waa imaam muxaditha oo xadiid yaqaana. wuxuu ka faa'iideystay imaamkaa la odhan jiray shaafici fiqina waa ka faa'iideystay, sidaas oo kale luqadna waa ka faa'iideystay. xalqadii sufyaan ibnu cuyayna ayaa maka maruu ugu yimi uu dhaafi jiray, waxaana uu tegi jiray xalqadda shaafici isagoo doonaya inuu ka qaato alluga alcarabiya. marka arrinta noocaas wax laga weydiiyena wuxuu yidhi ibnu cuyayna xataa haddii isagu uu isheego ardaydiisa ayaan sanad naazila xadiidkiisa kaga qaadan doonaa, laakiin shaafici aqoontaa uu luqada u leeyahay haddii ay seegto cid markaa aan ka helayaa ma jirto. alimaamu shaaficiyu raximah llah ardaygiisaasi axmed ibnu xambal waa ka faa'iideystay. waxa uu odhan jiray xadiidku idaa saxa alxadiidu cindakum faaclimuuna bihi linastakhrija minhu fiqhan. xadiidku marka uu saxiix agtaada noqdo, aada ogaato axmedow xadiidku inuu saxiix yahay, ii sheeg buu odhan jiray si aan fiqi uga soo saaro, intaan xadiidkaasi ta'amulo oo aan u fiirsado. arrinta noocaasna waxaynu ka baranaynaa tawaaducu alimaam shaafici. imaamu shaafici siduu uga fogaa kibirka, yastafiidu min طulaabihi, ardaydiisii ayuu ka faa'iideysanayaa. imaamu shaafici raximah llahu tacaala baabka cilmiga horeynu u sheegnay kibir iyo isla weyni inaanu u kordhin, xataa ma jeclayn cilmiga isaga laga barto in had iyo jeeraale isaga loo soo nisbeeyo, isaga loogu abtiriyo. maqsuudkiisu waxaa dadku inay cilmiga bartaan oo wadada ay ku iftiinsadaan, ilaahayna si saxa ay ugu caabudaan. oo qofku haddii uu muraad kale leeyahay oo uu cilmiga sharaf iyo magac iyo wax uu ku doonaayo, amase mustakbir uu yahay, ayuu jecel yahay kelmadii laga maqlaba marka la sheegayo in isagana la sheego. lakin alimaamu shaafici wuxu uhi wadidtu ana annaasa tacalamuu hada alcilm walam yunsab ilaya minhu shay. waxaan jeclaan lahay buui dadku cilmigan horta inay iga qaataan si ay ugu intifaacaan, laakiin cilmigaa wax ka mida aniga aan laygu soo abtirin, fa uujara calayhi walaa yaxmaduunii. oo waxaan doonaya in ajar layga siiyo, cilmigaana aniga aan laygu ammaanin. marka shaafici saasuu ahaa mutawaadic. arrintaana dadka macalimiinta ah iyo mashaayikhda dadka cilmiga u dhigaa waa inay ka bartaan. nebigeeni maxamedna calayhi salaatu wasalaam sifadiisa iyo tilmaantiisa ayay ka mid ahay. saxaabigii la odhan jiray tamiim ibnu aws addaari, markii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uga waramay wixii uu soo arkay markii doontu ay la qarqoontay meesha jasiiradda ay kula caariday, haddii ay tahay almasiixu dajaal iyo haddii ay tahay aljasaasa, labadaba xadiidku waa dheer yahay, muslim baanu ku jiraa. nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii intuu soo ururiyey ayuu markaa tamiim warkaasi ka wariyey, asxaabtiina u sheegay. nebigu horeba waa ugu sheegay oo cilmi cusuba usoo kordhiyey maaha, laakiin waa wax nebigu war ahaan uu hayay, isaguna uu soo arkay. walaysa alkhabaru kalmucaayana, warka iyo aragtiduna isku mid maaha. walihaada baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi tamiim wuxuu inooga warramaya uu soo arkay wixii aan idiin sheegi jiray. marka qofku in kasta oo aqoon uu ka gaadho, cid kastoo uu isleeyahay waxbay kuu faa'iideyn kartaa, waa inaanu iska kibrin. alimaamu sufyaan raximah llahu tacaala waa ka yidhi laa yanbulu arajulu xataa yaakuda miman fawqahu wa miman duunahu. qofku cilmiga darajo sare ka gaadhi maayo ilaa cidda ka sarraysa ee ka aqoon badan iyo cidda ka aqoon yar, intaba wixii aqoon markaa uu ku arko uu ka qaato. waxaa arrin aada iyo aada u liidata ah oo in fara badan oo ka mid a dadka muslimiinta gaar ahaan dadka waayeelka ay sameeyaan, in iyagoo diintiiba aan baran haddana ay isu arkaan aqooniba inaanay ka maqnayn. waxyaaba la yaab leh ayaana arrinta noocaasiya naga soo maray. qof aan qur-aanka musxafka aan ka akrii karahayn oo haddana isu arka cilmiba inaanu ka maqnayn. waxyaabaha aadka u la yaabka badan ee anigay soo maray waxaa ka mid a anoo dhigaya kitaab fiqiya
ayaa waxa aan soo hadal qaaday masalada ku saabsan qofka qof deyn ku yeesha ee qofkaasi deynta ka suga maadaama uu yahay qof caydh oo aan iska bixin karin in maalin walba ajir lagu qorayo. nin marka odayaba wuxuu yidhi wallahi ismaan lahayn cilmi baa kaa maqane ma caawa masalo cilmiya ayaad ii faa'iidaysay. xaaladiisa marka saa u eegayna aqoon diineed ma laha, qof diin bartay ma aha oo xataa kutubta akhrin kara, haddana heerkaasi ayuu isla taagan yahay. qofka haddii arrinta noocaasi qalbigiisa ay gasho waxau noqonaya qof maxruuma oo khayrka ka qada oo cilmiga ka qada. waxyaabaha muhimkaana waxaa ka mid a ee qofka diintiisa iyo adduunyadiisaba raad fiican ku yeesha an yacrifa qadra nafsihi, inuu qadarka naftiisa uu garto. wuxuu garanayay waxaanu garanaya waa inuu kala yaqaano, wuxuu galay iyo waxa uu gudo, darajada uu taagan yahay qofku waa inuu yaqaan. laakiin waa mushkilad aada iyo aada u weyn qofku inuu garan waayo qadarka naftiisa iyo xaalkiisa oo isagu uu isqiimeyn kari waayo. arrinta noocaasi waxa ay sababtaa wax badan oo ka maqan qofku inuu baadi doonan waayo. waxa kaloo ay sababtaa wax badan oo uu ku khaldan yahay inaanu iska daweyn ayay sababtaa cudurkiisa sidiisaasi uu isaga wato, khaladkiisana inuu sidaasi u xambaarsanaado. alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala safarada noocaasa ayuu cilmiga u galay, intaana kuma aanay koobnayn. baqdaad waa ka soo socdaalay ilaa wuxuu yimi sanca alyaman. waxyaaba u yimi waxaa ka mid ahaa, waxaa loogu sheegay halkaa cilmiga la dhaha cilmu alfiraasa, nin yaqaanaa inuu jiro iyo kutub cilmigaa ku saabsani halkaasi inay taallo oo laga helayo. wakadalika aimadii cilmiga magaalada sanca iyo nawaaxigeeda joogayna inuu ka faaidaysta ayuu doonayay. cilmu lfiraasa waa maxay? cilmu lfiraasa waa waxaan maanta psychologyga ay u yaqaaniin ama carabi ahaan cilmu nafsiga la idhaahdo oo kale. oo qofku markuu qofka sidaa u eego inuu masanuunin karo, uu qiyaasi karo qofkaasi inuu yahay qof faham badan, qof xifdi badan iyo inaanu hayn, qofku inuu yahay qof fariida iyo in kale, qofku inuu yahay fulay iyo inuu yahay qof geesiya. imaamu shaafici raximah llahu tacaala qiso waxaa jirta dariifa oo markii uu ka soo noqday yaman xagga maka uu ku socday jidka uu kula kulmay iyo waddadaasi uu sii maraayay. qisadaasi waxay ahayd nin ayuu usoo hoyday habeen oo uu martiyey. ninkaasi markuu wejigiisa sidaasi u eegay ee uu saaray miisaanka cilmigii uu soo bartay cilmu alfiraasa, waxaa usoo baxday ninkaasi inuu yahay nin guna la-iim, inuu yahay nin goba aanu ahayn. kadib ninkii imaamu shaafici aada buu usoo dhaweeyey. horta gurigii uu deganaabuu uga baxay, si fiicanna waa ugu goglay, cunto fiican buu u keenay, cadar iyo udug buu usoo diyaariyey. subixii markii uu doonay imaamu shaafici socdaalkiisi inuu sii wato, wuxuu u raray xataa daabadii iyo gaadiidkii watay. imaamu shaafici arrintaas way ka yaabiso, waxay isu qaban waayeen. kutubtan uu sitaa waxa qofka noocan oo kale ay ka sheegayso iyo qaabka noocan ee ninkan uula dhaqmay. wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey kutubtan gebigeedaba inaan iska daadiyo. waxaanay sheegaysaaba dee xaqiiqo maaha oo ninkan markaa miisaanka kutubtaa la saaro waa nin guna. qaabkanuu ila dhaqmayna dee waa qaabkii gobta iyo dadka wanaagsan ay u dhaqmi jireen. imaamu shaafici ninkii isagoo macasalaameynaya wuxuu ku yidhi haddaad ma ka timaado meesha noocaasa baan ka deganahaye dee bal isoo tooyo oo isoo warayso oo halkaa igu kaalay si aan dee aniguna aan kuugu abaalgudo. nabiga calayhi salaatu wasalaam yihi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh, qofka wanaag idiin sameeya uu abaalguda. ninkii dabeetana wuxuu ku yihi acabdu abika ana, wixii uu markii hore ka fishay baa ninkii kasoo baxday oo gudnimadiina. wuxuu ihi ma aabbaha addoonkiisii baan ahay, maxaan kaasoo doonayaa bui arina xisaabi. oo gogashii aan kuu dhigay xalay 2 dirham bay ahayd, raashinkii intaasuu ahaa, udugii aan kuu keenay lacagtiisu waa intaa, markaa ina xisaabi oo lacagta iska soo daadi bui. markaasaa alimaamu shaafici raximah llahu tacaala usoo baxday
cilmigii uu soo bartay inuu sax ahaa kutubtan waxa ugu qornay inuu yahay wax sax al-Imam Shaafici rahimahu Allah ta'ala hadii aynu eegno dhinaca aqoontiisii waynaga wax ka tilmaanay waliba kooban marka la eego xagga aqeedadiisa aqeedatu waxay ahayd al-aqeeda saxiixa aqeedatu nabi alayhi salatu wasalaam was-saxaaba haday noqoto baabul asmaa wa sifaat ilaahi subhanahu wa ta'ala magaciisa quraanka uu ku sheegay oo walillahi al-asmaa'ul husna ayuu ilaahi u sugi jiray sidaas oo kale sifaadka nabi sifaadka ilaahay quraan ku sheegay ama nabiga xadiis saxiixa ku sheegay ilaahay uu leeyahayna dadka suga ayuu kamid ah sifaadka waliba sida gaarka ah al-Imam Shaafici rahimahullahu ta'ala uu uga hadlay ee sanad saxa lagaga hayo waxa kamid ah sifatu uluwi Ilaahi subhanahu wa ta'ala wa istiwaa'ihi ala 'arshi sifada inuu ilaahay ka sareeyo khalqigiisa arshigiisana ilaahay inuu ka kor noqday waana sifo sheegisteedu ay ku soo noqnoqotay quraanka iyo xadiidka nabiga kaleey salaatu wasalaam oo adillada markaa ku soo aroortay ay boqolaal gaarayso hadaanay ka badnaanba oo aanay kumanaanba waxay noqon sa culimada qaar kood ay yiraahdeen Imam Shaafici rahimahullahu ta'ala xagga tawxiidka markay noqoto tawxiidul ibaada ilaahay ibaada loo gooni yeelo kana min al-a'immati al-muwahhidin shirkiga iyo xaq ilaahay uu leeyahay cid kale in loo leexiyo aad iyo aad buu uga fogaa waxyaabaha uu sheegay waxa kamida Imam Shaafici uu yiri waxa aan aad iyo aad u naceebahay buu yiri in qof qabrigiisa la dhiso iyadoo oo la weyneenayo way sidaas hadii la yeelo waa lagu fitnoobaya qofka oo arintaasi waa arintii shirkiga sabab u noqotay waa halkii shirkigu ka bilaabmay وإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحيابا ساعد وشيء عقيدة كمدة وحكمدة أن الإيمان قول وعمل وأنا عقيدة القرآن كي الصنوبة يتلو من عقيدة النبي والصحابة إنه إيمانك يهي قول عرب كالقاها الله عقيدة قلبي كالقاها آمنه عمل كستو أو ناكسان أو شرعي أو إلهي لو قد وادانا إنه إيمانك كمدة يهي بتلمامي أرنت نوع عصا وحا أنشعلها هاي انتينا نعرفين hal qodob oo muhiim ah in xusuusiyo maanta waxa jira adduunyada dusheeda aad iyo aad u joogo ugu firirsan oo ku faafsan dad yiraahdo waxaanu nahay Shaafiiciyan nahay oo hadii la madhabkaagu waa maxay wuxuu oranayaa anigu Shaafici baanahay qofku haduu yahay qof caamiya oo cilmiga iyo fiqiga Shaafiiciyan aqoon inuu raado Shaafici baanahay iyadu sax maaha warkiisuna wuxuu noqonayaa war xaqiiqada khilaafsan oo run aan ahayn sidoo sheegay al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala hadii qofku uu Imam Shaafici rahimahullahu ta'ala cilmigiisii bartay oo ka faa'iideystay dib ma laha inuu qofku dhaa Shaafici baan ahay laakiin arintaan u socdaa waxay tahay waxyaabo aad ka u la yaab kale waxa kamida inuu qofku yiraahdo Shaafici ahkaamtii farciga ahayd ee fiqiga ahayd in badan oo kamid ah ahkaam ijtihaadiya oo istinbaad ku dhisan iyo ra'yi adiladu ay asal u tahay ayaan Shaafici ku waafaqsanahay qofku inuu yiraahdo isla markaana Shaafici uu ku khilaafo usul ad-diin oo noqdo qof xabaalaha dhisaya qubuuraha ku dawaafaya dadka dhintay baryaaya oo iyaga naf ka dayaya halkii iyaga uu ducayn lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala maadaama amalkoodu go'ay والرحمة يد مداف قوي الدين لها وحلياب لقفك إنه يراهده أنا شافعي في الفروع أشعري في العقيدة أنا حق فروع دي أحكام تفقي قال شافعي بانه لكن عقيدة مركي نقطة أشعري بانه واي طريقة مركي نقطنا وحنا هي قادري شافعي المذهب أشعري العقيدة قادري الطريقة تثليث كنوع عاصي متصح معه iyadoo Abdul Qadir Jilani laftiisu caqiidiisu ay sax ahayd oo waxa dadka uu isba sheeganay ay sameynayaan wax sax aan ahayn iyadoo Abul Hasan al-Ash'ari caqiidadii khaldanayd ee mu'tazilada uu ka qaatay laftiisu uu ka toobad keenay badankeedii gaalibkeedii sida kitaabkiisa al-Ibana iyo kutubtiisa kale qaar kale oo kamidaba waxa weeyaan ku qoran laakiin waxaanu leenahay Abul Hasan al-Ash'ari iyo عبد القادر الجيلاني إيو
imaamu shaafici raximah allahu tacaala waa ka horreeyey. markaa qofku inuu idhaha shaafici furuucdan ka qaadanaya axkaamta fiqiga ah, caqiidadii oo asalkii diintana waan ku khilaafaya, waa nasiib daro. inuu noqdo mutacasib lishaafici fi laxkaam, mid shaafici aada ugu tacasubaya xataa qowlka shaafici haddii daliilu khilaafo qaadanaya oona inuu qowlka imaamkayga khilaafi maayo, markay noqoto caqiidadii iyo manhajkii iyo masaa-ishii muhimka ahaydna shaafici khilaafaya, arrin nasiib daraa weeye. qofka sidaa yeelayaana oo qof u baahan inuu dib isugu noqdo oo bal dib uu eego waxa uu falaya uu samaynayaa inuu yahay wax saxa iyo inuu yahay wax khaldan. walaa shaka arrinta noocaasi inay khaldan tahay. shaafici markaynu leenahay usuushii waa inaan lagu khilaafin, uma jeedna hadalkiisa daliila, laakiin waxaynu maadaama caqiidadiisu ay tahay caqiidadii saxda ahayd, caqiidatu nabiy wasaxaaba uu waafaqay, dee qofka isaga ku waafaqa wixii nebiga iyo saxaabada uu ku waafaqay wuxuu noqonayaa qof wadadii saxda ahayd maray ayuu noqonayaa. arrimaha muhimka ah ee alimaamu shaafici raximah allahu tacaala taariikhdiisa ka dhex muuqda ee arrintaasi aynu sheegnay caqiidada saxdaa soo raacaya waa taxqiiquhu lilitibaac. alimaamu shaafici raximah allahu tacaala waxaa loo yaqaano bidaca iyo hawaraaca aada iyo aad buu uga fogaa. waxaanuu ahaa qof ilaahay qowlkiisa iyo xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xidho oo haddii uu caddaado dhinacna baanu dhaafin. ummadda islaamka ee wakhtigiisii noolayd iyo kuwa ka dambeeyeybana dardaarano qaaliya oo arrinta noocaasiya ku saabsan ayuu alimaamu shaafici raximah llahu tacaala siiyey. aada buu imaamu shaafici uga cadhoon jiray xadiid nebi haddii uu sheego, haddii su-aal la weydiiyo la dhaahdo xadiidkii sheegtay adigu maxaad qabtaa. mararka qaarkoodna waxaa dhacday dadkii su-aashaasi weydiiyey inuu ku yidhi inaan muslim ahay miyaanad arkahayn, ma yahuudi baan ahay, ma kiristaan baan ahay, sidaan u yeelan karaa anigu ra'yi iyo qowl iyo aragti iyo mowqif xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam khilaafsan. maqaalaadka iyo oraahyada dahabiga ah ee imaamu shaafici raximah llahu tacaala laga soo wariyey waxaa ka mida idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi. xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu xadiid saxiixa noqdo aniga isagaa ii madhaba, ma lihi madhab khilaafsan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam. haddaad aragtaan qowl aan leeyahay ama ra'yi aniga iga soo fulo xadiidka nebiga khilaafsan, ra'yigayga tuura buu odhan jiray. xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam qaata, waa siduu ilaahay addoomaha amray, ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa. ilaahay subxana wa tacala wuxuu idiin soo dejiyey raaca, wax kala ha raacina oo aad ka dooranaysaan ilaahay hadalkiisii iyo xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, amaba se dee aada garab dhigaysaan oo aada leedihiin waxaanu raacaynaa qur-aanka iyo xadiidka iyo qowlka sheekha. qowl sheekh lama garab dhigi karo hadalka ilaahay iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam. imaamu shaafici masaa'il badan wuxuu ku xidhay inay madhab u noqoto sixat alxadiid, xadiidkaa sixitaankiisa. wuxuu odhan jiray idaa saxa alxadiidu qultu bihi. mas'aladaasi xadiidka ku soo arooray hadda anigu ma huba inuu saxiix yahay, laakiin hadduu ansaxo xadiidku sidaasi uu tilmaamay baan anigu ku tegayaa buu odhan jiray. waxaa ka mid a masalada ku saabsan alwuduءu min laxmi اlibil, in laga weysaysto hilibka geela. idaa saxa alxadiidu fiihi qultu bihi buu ihi. xadiidka kusoo arooray hadduu ansaxo xadiidkaasaan ku tegaya. xadiidkuna wuu ansaxay oo laba xadiid baaba ku ansaxay. xadiidka koobaad waa xadiidu jaabir ibni samura oo muslim uu ku wariyey saxiixiisa. xadiidka kalena waa xadiidka albara ibnu caazib oo imaam abu dawuud iyo tirmidi ay wariyeen, waana xadiiثaani صaxiixaani laa mucaarida lahuma. walihaada ba aimada iyo culimada shaaficiyada munsifiinta ee tacasubka iyo qabyaalo diineed ka fog ay yidhaahdeen xadiidku waa ansaxay, shaaficina sidaasuu yihi. marka madhabka shaaficiba waxa weeyaan bay yidhaahdeen hilibka geelu inuu weysada jebin in laga weysaysto. aimadaasi waxaa ka mid ah albayhaqi, alimaam annawowi raximah llahu tacaala oo fuqahada shaaficiyada ee dambeeyey ka mid a, isaguna sidaasi ayuu doortay. wuxuu yidhi qowlkaasi ayaa daliilahaan xoog badan. waxaa shaaficiyada qaarkood axaadiidaasi ay kaga jawaabeena wax markaa awood iyo taagla maaha oo wax daciifa buu yidhi. alimaamu shaaficiyu raximah llah
waxa bidcada la yidhaahdo aada buu u necbaa dadkana oo uga degi jiray mawaaqif aada iyo aada u cad oo mawaaqif sharafeed ah ayuu bidcada iyo dadka bidcoolayaashaaba alimaamu shaafici raximah llahu tacaala uu ka istaagi jiray hadaladiisa qiimaha badan ee bidcada uu ka yidhi waxaa ka mida laan yalqa alcabdu rabbahu bikuli danbin khala shirka khayru min an yalqaahu bishayin min alahwaa addoonku inuu ilaahay kula kulmo ilaahay lagu horgeeyo dembi oo dhan wixii aan gaalnimo ahayn ayaa dhaanta in ilaahay subxana wa tacaala bidca lagu horgeeyo taasina maxay muujinaysaa imaamu shaafici siduu bidcada u necbaa waxaa kale muujinaysaa sida culimada kale sunnuba ay sheegaan bidcada iyo macsiyada inay daran tahay bidcadu waa ka yidhi alimaamu sufyaan raximah llahu tacaala albidcatu axabu ila ibliis min almacsiya lianna almacsiyata yutaabu minha walbidcata laa yutaabu minha ibliis macsiyada waxa xaaraanta ah ama waajib la dayaco iyo bidco in la sameeyo ilaahay lagu caabudo diin looga dhigto waxaan ilaahay sharciyeyn bidcadu jecel yahay waana sababeeyey imaamku wuxuu yihi waxa loo yaqaano macsiyada waa laga toobad keenaa macnaheedu waxa weeye qofkan inuu khaldan yahay oo wadadii saxda ahayd uu garab marsan yahay isaguba waa og yahay waxaa qaaday uun shahwa qaaday jacayl naftiisu ay u qabto waxaa xaaraanta ah marka inuu toobad keenaa waa sahlan tahay waanada la waaniyaana waa raadeynaysaa qofkaa laakiin bidcada sida badan lagama toobad keeno qofku iyadu u arkaaba inay diin tahay oo ilaahay u dhaweynaya subxana wa tacaala oo janno waxa weeyaan uu ku galaayo inuu u dhintaa laga yaabaa qofku bidcada aada iyo aad buu u difaacayaa maalkiisuu ku bixinayaa naftiisu u hurayaa waqtigiisa ayuu saas oo kale uu uhurayaa ahlulkalaamka oo ah dadka caqiidada aan waxyiga u cuskan ee aan u daliishan aragtiyaha dadka iyo hadalkooda daliil uga dhiga iyo caqliga ula noqda alimaamu shaafici mowqif adag ayuu ka istaagay hadallada uu ka yidhi waxaa ka mid a waxaan ku xukumayaa buuhi xukmi calaa ahli lkalaam waxaan ku xukumayaa ahlulkalaamka kuwa caqiidada caqliga daliil uga dhiga ee waxyiga ka leexda in dadka la dhex wareejiyo qabaa-ilka lagu wareejiyo iyada oo markaa la fadeexadeynayo la leeyahay abaalmarinta cidda khilaafta kitaabka ilaahay iyo xadiidka nebigu caleyhi isalaatu wasalaam waa ta noocaasa suufiyada oo bidcadu aad ay ugu badan tahay imaamu shaafici raximah llahu tacaala hadal qaaliya buu iyagana ka yidhi oo tasawufka ugama jeedno qofku inuu noqdo qof cibaado badan oo si saxa u cibaadeysanaya tasawufka waxaynu uga jeednaa qofku adduunyadii xalaasha ahayd intii uu uga baahnaa inuu faraha ka qaado kadibna dee uu noqdo qof quudaaya oo damacuu kaga jiro waxa dadku ay hayaan isagoo isla markaa zuhdi sheeganaya sida dad badan xaalkoodu u badan yahay sidaasoo kale tasawufka aynu sheegaynaa waa in waxyaabo bidco ah oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadda aanu u sheegin ilahina aanu ku caabudin in la idhaahdo ilaahay baanu ugu dhawaanayna waxyaabahaasoo ay ka mid tahay inay raggu durbaan garaacdaan iyagoo le ilahay baanu taa ku caabudaynaa ama xadrada waxaa la idhahdo ay sameeyaan inay qasaa'id gabayo iyo nashiidooyin aan qur-aan iyo xadiid toona ahayn inay yidhaahdaan waanu akriyaynaayo ilaahay baanu subxana wa tacaala ugu dhawaanaynaa imaamu shaafici wuxuu yihi ninku haddii uu gelinka hore suufi noqdo gelinka hore maalintii gelinka dambe wuxuu soo gaadhaa iyadoo nooc doqonnimo ahi qofkaasi ay asiibtay oo ay ku dhacday arrinta noocaasina a'imada kaleba waa sheegeen sheikhulislaam ibnu taymiya waxyaabaa uu sheegay waxaa ka mid a ana alictiqaad asaxiix yuqawi lidraak caqiidada saxda ahi qofka garaadkiisay xoojisa waxyaabaha khuraafaadka ahayna qofka maskaxday ka dilaan iyo caqliga hoosna way u jeediyaan waxaanay ka dhigaan qof aan arrimaha si saxaan u qiimeyn karin walihaada waad arkaysaa qof weyn oo markii hore caqli lagu yaqaanay khuraafaadku haddii ay galaan isagoo waxaan qiimo lahayn ka baqanaya ole ka baarogan iyo bahal baa iga soo horbaxay iyo shimbir baa ciday iyo qabri qof beri hore la aaso laga yaabo xataa wax jirhkiisii kamidi qabriga inaanay ku hadhin isaga oo naf ka dayayo ama ciidda qabriga dultaa la qaadanayo ole waan ka barakaysanayaa
isagoo jin baryaaya marka qofkii caqligiisii ayaa xumaanaya aragtidiisuna aragti khaldan ayay noqonaysaa caqiida xumadu arrinta noocaasana waa dhasha caqiida saxdiina qofka waxay ka dhigtaa qof si saxa u fikiraya arrimahana saaraya miisaan fiican alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala ma ahayn intii uu yaraayo hore daalibu cilmi qura cilmiga un barta markii dambe caalim uu noqdayna ku mashquulay uun dadka inuu cilmiga u dhigo oo qura alimaamu shaafici raximah llah wuxuu ahaa saaxiba cibaada ayuu ahaa waa kuwa sheegay ardaydiisa qaar sida arabiic oo kale inuu habeenkii u qeybin jiray 3 qaybood qayb uu cilmiga muraajaceeyo iyo qayb uu cibaadaysto uu tukado ilaahay subxaana watacaala uu xuso iyo qayb uu seexdo oo nafta u nasiyo kadalika wuxuu caan ku ahaa imaamu shaafici oo taariikhdiisa si muuqata ugu xardhan qur-aan akhriska aada buu qur-aan akhris badnaa oo wakti kooban buu qur-aan ku dhamayn jiray riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan 3 maalmoodba mar inuu qur-aanka khatimi jiray alimaamu shaafici raximah llahu tacaala uu dhamayn jiray riwaayaad ka yarayn iyo kuwo ka badanayaana waa jiraan arrinta noocaasiina waa arrin mudan in laga barto 10 qiimo badan iyadoo tusaalaha koobaad uu yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ahaa caalimkii iyo mucallimkii ummaddan rasuulkii ilaahay subxaana watacaala uu soo diray hogaamiyihii ummadda waxaasoo hawle uu hayay iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee soo waajahay marnaba kamay mashquulin cibaadada waayo cibaadadu waa ta lagaga hortago dhibaatooyinka ilaahayna subxaana watacaala qofka uu kaga dulqaado cibaadadu waa ta loo kaalmaysto in lagu xaliyo mashaakilka kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam idaa xazabahu amru fazica ila الsalaa arrin adigi markay la soo daristo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuu tukan jira oo ilaahay bu subxana watacaala xidhiidh uu la samayn jiray waa ilahay in la caabudo ilaahay laga baqdaa iyada ayaa farajka sabab u ah sida ilaahay subxana watacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim waxaynu ka baranaynaa qofka aalibulcilmiga iyo qofka daaciga iyo qofka caalimka ahi iyo qofka dadka wuxu sheegaya tawjiihinaya naftiisa inaanu ilaabin oo aan cilmigu aanu ka mashquulin camalki inaanu ka mashquulin waayo sideedaba cilmiga la amaanay waxtarka lihi waa cilmiga hagaajiye qofka qalbigiisa iyo intiisa muuqataba imaamu shaaficina hadal aada u qaaliba arrintaasi ka yidhi wuxuu idhi alcilmu maa nafac walaysa maa xufid cilmigu waa waxa qofka anfaca qofka hagaajiya imaha waxa la qaybo ee la xifdiyo qura waa nasiib daro dadka dalabatulcilmiga ahi inay noqdaan kuwo dadka u cibaado yar hadday tahay qur-aan la akriyo hadday tahay adkaar hadday tahay salaad la tukado haddii ay tahay cibaadaadka kale ilaahay loogu dhowaado soon qofkii awood u leh xaj ama cumro inuu tago sadaqad lala baxo oo ay noqdaan dadka caamada ahi ee aan aqoonta lahayni kuwa ka cibaado badan waxaa la odhan karaa qofka cilmigiisii si saxa uma anficin qof daalibu cilmi oo salaada subax ka seexanaya iyadoo odayaashii caamada ahaa ee kitaabka haddii loo kala furo inuu hoos u jeediyo kor inuu ujeedo aan kala garanahayn safka hore ay ku dadaalayaan oo ilaahay subxana watacaala waqtiyada qaaligaa ay xusayaan marka arrinta noocaasi ah ee siirada shaafici ku saabsani dadka ducaadda iyo dalabatulcilmiga inay naftooda cibaadada iyo khayrkii wanaagga ay kula dadaalaan waa inay xusuusiso iyadoo cidda koobaad arrinta aynu ka baranayna uu yahay nabigeeni moxamed calayhi afdal salaatu watasliim alimaamu shaafici wuxuu u wareegay markii dambe xagga iyo masar markuu u wareegay fiqigiisii wax badan baa iska bedelay walihaada baa la sheegaa laba qowl qadiima oo intuu ciraaq joogay waa wixii masaa-isha qaar uu ka yidhi iyo qowl jadiida masaa-isha qaarkood baa aragtidiisii hore isbedeshay arrinta noocaasina waxay ka turjumaysaa inuu daliil raaco ahaa oo markuu arkay sidii markii hore masalada ay ula muuqatay iyo wixii uu ku dhisay inaanu sax ahayn qowlkiisii waa bedelay kamana khajilin qofka caalimka iyo mucallimka xaqdoonka ahina sidaasi ayuu yeelaa dadkuna arrinta noocaasi inay kula yaabaan maaha idhaahdaan kitaabkii hore markii aad noo dhigaysay saasaa tidhi kitaabkan kalena saasaa tidhi
haddii imaamu shaafici iyo a'imadii culimada waaweyn ahaa masaa-isha qaarkood aragtidoodu waa isbedelaysay arrintaasina ay ku dhisnayd mar walba daliilka inay qadarinayeen dadka dalabatulcilmiga ah maxaad u malaynaysaa alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala masar markii uu tegay cilmi badan buu ku faafiyey subaxii buu fadhiisan jiray ilaa maalintii oo dhan dadkuna marba fanni ayay ka dhagaysan jireen oo mutafanin buu ahaa yacnaa cilmiga noocyadiisa kala duwan ayuu aqoon u hadday tahay cilmigii qur-aanka cilmigii xadiidka luqadii hadday tahay fiqigii hadday tahay marka dersi markuu ka baxaba mid kale ayuu geli jiray maca dalika imaamu shaafici raximah llahu tacaala ma ahayn mid maalqabeen ama xoola haysta faqrigii noloshiisu ay ku bilaabantay ayay ku gebagabowday wixii maal soo galana sida taarikhdiisa lagu sheegay ilaahay subxana wa tacaala daraaddiibuu ayuu inta badan uula bixi jiray arrinkiisuna wuxuu ku ekaa markaa kafaaf cidna ma baryi jirin oo xama weydiisan jirin isla markaa mid adduunyo u tafaxaytay oo ku mashquulayna ma ahayn waa nasiib daro qof ilaahay cilmi uu baray daalib cilmi ilaahay uu ka dhigay inuu cilmigaasi ka doorto intuu iska daayo sii wadistiisii iyo dadka inuu u dhigo u sheegaba adduunyo inuu ka doorto ma lihin yaanay shaqaysanin dadka dalabatulcilmiga iyo ducaaddu oo qofku inuu kasbi yeesho uu dadka kaga maarmo iyo su-aashooda iyo baryadooda waa arrin aada iyo aada u fiican nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam uu dhiirigeliyey culimaduna ardaydooda ay kula dardaarmi jireen laakiin tafoolxumadii waxay tahay nasiib darrada ahi inuu qofku cilmigiiba ka tago adduunye waxa weeyaan u jeesto imaamu shaafici dada kuwa caqliga badan buu ka mid ahaa sida culimada qaarkood ay ku sifeeyeen ma garan waayin inuu shaqaysto oo adduunyo fara badan uu tabcado laakiin wuxuu garanayay waxaanuu wadaa inuu yahay wax adduunyada ka khayr badan oo ah wixii mudnaa in lagu farxo sida ilahay yihi qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaanuu diidayay waxaan qiimaha badan ilaahay uu siiyey inuu ku bedesho adduunyo qiimaheedu aada u hooseeyo qadarkeeduna u liito atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr imaamu shaafici waxaan ku gebagabeynayaa cilmi badan baa laga dhaxlay oo ilaahay sababuu uga dhigay dadaalkii iyo juhdigii faraha badnaa uu ku bixiyey barashada cilmiga markii dambena faafintiisa waktigiisii raggii joogay baa u ducayn jiray sida cabdiraxmaan ibnu lmahdi oo kitaabkan usuul fiqiga alrisaala uu qoray iyo yaxya ibnu saciid alqataan wakadalika imaamu axmed oo culimadaas waxay sheegeen qaarkood salaad kastoo ay tukadaan imaamu shaafici raximah llahu tacaala inuu ugu ducayn jireen wamaca hada cumrigiisu aada uma dheeraan saynu sheegnay wuxuu dhashay 150 taarikhda hijrigu markay ahayd 204na uu dhintay wuxuu noolaabay adduunyada uu joogay 450 sanadood haddana ilaahay baa barakeeyey subxaana wa tacaala taasina waxa ayna xusuusinaysaa cumrigeenu aada buu u kooban yahay cumriga ummadan baa sidiisaba koobanba wamaca dalika aad u garan maysid cumrigaagu intuu noqon doono ma dhalinyaronimaad ku dhiman doontaa mise da-baad gaadhi doontaa war uma haysataa marka maalmaha aada haysato maalinta aada joogto ayaa mar walba raasamaalkaaga berri oo kale ma ogid inaad gaadhi doontidba oo nolol aad ku gaadhi doontid marka nicmada cumriga qofka muslimka waa inaanu iska dayicin cilmi uu barto cibaado sahay aakhiro wax nafci ule waa inuu ku dadaalo siduu inagula taliyey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah wixii waxtarkuule ku dadaal awooddaada iyo xeeladadana ha isku hadlayne ilaahay subxana wa tacaala kaalmayso nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nolosha in laga sahay qaato oo dee geeri loo sahay qaato in dhalinyaronimada laga sahay qaato oo dee gabowga loo sahay qaato caafimaadka in laga sahay qaato oo cudur markuu ku helo loo sahay qaato firaaqada iyo jaaniska qofku uu haysto inuu ka fursadaha soo maraya inuu ka sahay qaato ka faa'iidaysto waayo waxaa dhici karta qofku inuu mashquulo qofka muslimka waqtigiisa waa la weydiinayaa fi laakhira waanu taagnaanayaa ilaa waqtigiisii la weydiiyo weliba waa laba su-aalood cumrigiisii oo la weydiinayo waxa uu ku baabiiyey iyo dhalinyaronimadiisoo la weydiinayo waxa uu ku baaliyey waayo dhalinyaronimadu haddaad sii noolaataba way baaliyoobi doontaa oo dee da ayaa ku eryanaysa iyo gabow iyo waayeelnimo
marka imaamu shaafici 450 sanadood isagoo noolaa haddana nafciga noocaasa ummadda inuu yeesho waxyaaba ilaahay sabab uga dhigay waxaa ka mid a inuu ka faa'iidaystay waqtigiisii oo waqtigiisa aanu dayicin dadkan aynu arkayna ee qiimaha yeeshay ee naftoodana anfacay ummaddana anfacayna waxyaabaha ay horumarkaasi ku gaadheen waxaa ka mid ah cadamu tadiici lwaqti waqtigooda inaana dayicin oo wax aan macno lahayn inaanay ku dayicin wa min xusni islaami lmari tarku maa laa yacniih intaasaynu biidn illahi subxana watacaala aynu ku joojin doonaa suurtagal bay noo ahayd in aynu si xidhiidhsan uga warano siiradii shaafici laakiin waxay ila muuqatay ta muhimkaa inay tahay meelaha muhimka ee casharana aynu ka baran karno cibra ay ku sugan tahay iyo waano inaynu soo hadal qaadno ilahay baynu subxana watacala weydiisanaynaa inuu inagu anfaco waxaase aynu maqalay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira shaykhana saa'ilkani wuxuu leeyahay maxaad ku waaninaysaa aada ugu nasteexaynaysaa waalidiinta geysta awlaadooda masaajidda loogu dhigaayo afkaarta khilaafsan diinta islaamka taasay ka dhalato in awlaadda ay ka soo gaadho dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay qaarkood xadhig la xidhaayo muddo dheer hadhowna waalidiintii ay odhanayaan dhibaataduba waxay naga soo gaadhay kutubta iyo caqiidada iyo masaajidda aanu geysanay ee diinta islaamka loogu dhigaayo waay su-aasha ina weydiiyey walaalkeen maxamed isagoo su-aashaasi kasoo tabinaya walaalaha muxaadarada dhegeysanaya waxay tahay ubadka qaarkood marka ay qaataan afkaarta khaldan ay ka mid tahay gaalaysiin intaas waa tafsiir anigu aan ku darayo ama ay ka mid tahay dagaallo ansaxayn oo jihaad lagu sheegayo inay ubadkii galaan ama inay isqarxiyaan in waalidkii ilmihii dhibaata ay la kulanto in waalidka ay yidhaahdaan xagga diinta ayaa nalooga yimiba arrinta noocaasi arrin saxa maaha diintu waxbay hagaajisaa waxna ma xumayso waa waxyigii ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka yimid diintu ilaahayna subxaana watacaala wuxuu yidhi waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun waa wixii ilaahay uxukumay waxa ilaahay uxukumayna wax ka wanaagsani ma jiro qur-aanka ilaahay markuu ka warramay wuxu uhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa qur-aankani qofka qabsadee si saxa u qabsado waxa uu ku hanuuninayaa oo uu tusayaa waddada u toosnaanta badan meel khaldan qur-aanku dadka marin maayo qofka aan taa aaminsanayn ee aaminsan diinta lafteedu dadka inay khaldayso ama qur-aanku waddo khaldan inuu marinayo dadka marin habaabinayana qofkaasi waa qof ku dhacay naaqid min nawaaqid alislaam iimaankiisa ayaa qofkaasi buraya waayo warkii ilaahay buu beeniyey nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay wuxuu yihi taraktu fiikum shay-ayn lan tadiluu maa in tamasaktum bihima waxaan dhexdiina kaga tegay laba shay lumi maysaan haddaad labadaa shay qabsataan waa kitaab ullah wa sunnatii buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kitaabka ilaah oo qur-aanka ah iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaba mushkiladu waa maxay ay muhimka tahay dadku inay fahmaan gaar ahaan waalidka ubadka dhalay si sax ay u fahmaan qur-aanku waa sax xadiidka nebiguna waa sax meel khaldanna qofka marin maayo taa qofka mid aan ahayn aaminaana isagaa islaamnimadiisa ku waayaya oo warkii ilaahay iyo warkii rasuulka qof beeniyey buu noqonayaa diintii rabbina mid wax ka sheegay oo caayay oo duray oo xumaan ugu abtiriyey buu noqonayaa mushkiladu halkay ka socotaa waxa weeye ilmaha yaa wuxu dhigaaya kitaabku isagu hadli maayo xadiidka laftiisuna dhawaaqi maayo cid baa ka hadlinaysa soo maha kitaabkii qur-aanka ahaa ilmaha u fasiraysa xadiidkii nebigana calayhi salaatu wasalaam cid baa u sharaxaysa ilmihii marka almushkilatu waa min almucalim walmudaris mushkiladdu waxay ka imanaysaa mucalimka qofka ilmaha wax u dhigaaya qofkaasi haddii uu yahay qof waddo saxa isagu haya manhaj saxa manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waddadii nebiga iyo saxaabada oo qur-aankii iyo xadiidkii u fasiraya una raacaya sidii nebi maxamed uu u fasiro ugu dhaqmay saxaabada iyo ummaddan qeybteedii hore ee nebigu ammaane uu yihi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum
say u fasireen ugu dhaqmeen u dabaqeen qof u raacaya haddii uu yahay ilmahaasi cid wanaagsan buu la kulmay intaa dabeed hadday balaayo hesho meelaha wadooyinka ay u gasho ama meel kale uga gacan haadiso ceeb kuma laha sheekhi wax fiican u sheegay arrinta noocaasi nicmo qaali inay tahayna culimadu waa sheegeen oo ayuub asikhtiyani waa kii yidhi min nicmati illahi cala alxadath waalacjami an yuwafaqa lisaaxibi sunna min awali wahla nicmada ilaahay uu siiyo qofka da-da yar ee caqli ahaan iyo khibrad ahaanba aan isku filayn iyo qofka cajamiga ee afkii carabeed diintu ku qorayd aan garanaya waxaa ka mid a inuu ilaahay waafajiyo saaxibu sunna qof manhajkii saxda ha haysta waayo waxaa marka horeysa loo sheego ayaa labadaasiba ay ku dhegaan marka haddii saaxibu sunna loo sheego ilaahay la kulmiyo sunnadii uu sheegayay bay ku dhegayaan haddii saaxibu bidca uu la kulmana oo macallin u noqdana dee isaga ayay waddadiisa marayaan marka waxaan leeyahy waalidku maantana waxba ma qarsoona wadaadada waa la kala yaqaanaa masaajidadana waa la kala yaqaanaa waa arrin cad maanta cidda dadka xaqdarro ku gaalaysiisa magacyadooda masaajidadooda axsaabtooda jamaacaadkooda waa la yaqaan cidda isqarxinta dhalinyarta ugu baaqaysa cidda dagaalada noocaasa u qurxinaysa waa la garanaya cidda manhajka noocaasa kasoo horjeeda ee mar walba ku qaylinaysa dadka qaar ha kuba caayaan qaarna ha ku ammaanaane waa la yaqaanaa xaqu wax qarsoon maaha haddaanad aqoonna xoolaha marka meel lagu rarayo loo sahan tagaa dee ilmahaaga inaad u sahan tagtid wey dadkaad wareysto aad tiraahdo war masaajidka markaska noocaasa yaa haya qoladaasi maxay aaminsan yihiin warkooda aada baadin doonto ilmahaaga inaad u sahan tagto ayaa ka muhiimsan sahantaga waxa weeyaan xoolaha loo sahan tago xuquuqda ilmahaagu uu kugu leeyahy waxaa ka mid a mucallim fiican oo cilmi saxa uu ka barto waddo saxana mariya inaad ilmahaaga aada u geyso o aada kagana warhayso marka waxaan leeyahay waalidku marka hore intay caruurtoodii guryaha kaga hadheen oo laga yaabo meelay tegayeenba inaanay war u haynin ayaa marka dambe ilmihii oo maskaxdii laga bedelay oo khasiilulmukh loo sameeyey oo madaxa laga maydho o wax kaloo lagu shubay markay arkaan bay hadallada noocaas ee khaldan ay ku hadlayaan marka dawada arrinta noocaasi waa taa in loo meel dayo ilmaha halka la geynayo oo laga fiirsado cidda macallin u noqonaysa iyo cidda sheekh u noqonaysa addacwa salafiya walilahi alxamdu iyo culimadeeda laga soo bilaabo kibaar alculamaa sheekh alalbani raximah llah sheekh ibnu baaz sheekh ibnu lcuthaymiin culimada nool ee maanta joogta sheekhuna sheekh muqbil raximah llahu tacaala culimada nool ee maanta joogta sheekh fawzan sheekh cabdilmuxsin alcabaad sheekh rabiic ibn lhaadi almadkhali wagayruhum kathiir aada bay u tiro badan yihin oo dee ma soo koobi karaa waxayn ahlulcilmiga iyo cidda manhajka ahlulcilmiga ku socota casrigan aynu joogno casrulfitana oo dhiig la daadinayo wax la gaalaysiinayo oo la isqarxinayo oo dadka ubadkoodii laga boobaayo oo meelahaanay jeclayn waxa weyaan la geynayo oo waalidkood inay caasiyaan dad ducaad iyo cilmi iyo khayr sheeganaya ay ugu baaqayaan culimadaasi ciddii cilmiga ka qaadatay dacwaddaas saxda ah ee ahlucilmigaasi ay wadeen sida ay tahay u raacday sharkaa way ka badbaadeen dagaal lamay gelin cidna ugumay baaqin ubadkii iyo da-yartii ku xidhantayna ilahay baa subxana wa tacala ku badbaadiyey oo bidcana kaga badbaadiyey khuraafaad iyo shirkina kaga badbaadiyey fitankaa casrigan jirana kaga badbaadiyey dadkuna maanta taas way og yihiin dadka badankoodu qof isagu isindhatiraaya oo kiiska iska waaliya mooyaane dadka badankoodu way og yihiin arrinta noocaas oo xaqiiqo jirta berigii hore dadka soomaalida aanay soo gaadhin arrintaasi amaba se caalamka aanay aada ugu faafin waa la yaabi jiray marka masaa-isha laga hadlayo an waxaan xusuustaa hargeysa markaanu ka hadlayno gaalaysiinta iyo isqarxinta iyo wax saxa inaanay ahayn dad fara badan baa nala yaabi jiray waxaan garanaya xataa rag wadaado inta ii yeedheen igu yihi waxaanad sheegaysaa wax jira maahay miyaad iska daysid oo aan ku ihi waad arki doontaa ilahay baa subxana wa tacala kelmadda iga dhawaajiyo o iwaafajiyey
ilaa arrintii ay dhacday wixii aanu ka hadlaynay. markaasay dadku ay baraarugeenee markhaati furoon ay yidhahdeen war wixii laynoo sheegi jiraa un la yaabanayn weeyaan, oo ay kala garteen cidda waxaa taageersan ee ubadkooda ugu baaqaysa iyo cidda kale. nebigu calayhi salaatu wasalaam markii fitanka uu ka hadlayay wuxuu yihi faman wajada maljan aw macaadan falyacud bih, qofka hela gabaad iyo meel uu fitnada ka magan galo ka magansado meesha ha gala buu yihi. fitanka maanta meelaha gabaadka ka ah ee dhufayska lagaga badbaado ah iyo meelaha laga magansado waxa aynu odhan karnaa waxaa ka mida adacwa salafiya iyo maraakisteeda. marka waxaan leeyahay dadka arrimaha noocaasa neceb inuu ilmahoodu noqdo takfiiri khaariji oo muslimiinta xaqdarro u gaalaysan oo dhiigooda xalaashanayo jecel inaanu arag ilmihiisii oo midisito oo dad gowracaya kuwa gaala iyo kuwa muslimiinaba. qofka jecel inaanu soo gaadhin war dhiilla odhanaya ilmahaagii baa isqarxiyey, ilaahay baa horta wax xanuuniye, laakiin isagu sababta hala yimaado oo meesha manhajka saxda ee waxyaabaha noocaasa lagaga digaayo lagu sheegayo inay khilaafsan yihiin diintii islaamka ee saxda ahayd, ubadkiisa ha geeyo. baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayra. qolada muxaadarada ka dhegaysanaysay manhaj online su-aal baynu soo weydiiyeen. su-aashaasi oo ah suufiyadu caqiidadii shaaficiyi maxay u aqbali waayeen? waxaynu leenahay man yurid illahu waman yurid illahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya. hanuunka ilaahay baa haya subxaana wa tacaala. imise ayaa arday sheekhiisii khilaafay. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwii la joogay maxay dacwaddiisu u aqbali waayeen? ilaahay baan subxana wa tacaala hanuun aan la damcin. sidaasoo kale qaar fara badan oo ummaddiisa ka mid ah oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka dambeeyey maxay u aqbali waayeen dacwaddiisii? ilaahay baan subxaana wa tacaala hanuun aan la damcin. asbaabna waa leedahay kolley arrinta noocaasi, oo imaamu shaafici raximah llahu tacaala inta uu xaq hayay waa intii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka dhaxlay. waxaa laga yaabaa dad fara badan oo iskaga abtirsanaya caqiidadiisii haddii la weydiiyey inaana aqoonba. marka asbaabta jahliga ayaa ka mid a. waxaa kaloo ka mida waxa weeyaan asbaabta marka jahliga laga yimaado culamaa usuu, dadku culamaa u haystaan laakiin iyaga laftoodu khaldan oo ku odhanaya shaaficiya ayaynu nahay, haddana caqiido khaldan oo tii nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ahayn, tii imaamu shaafici nebi maxamed uu ka dhaxlayna aan ahayn dadkii u sheegaya. marka ilaahay oon hanuun la damcin, jahli, sidaasoo kale culamaa usuu oo dad aan sax ahayn oo kala dhex gala culimadii hore wanaagsanayd iyo dadkii. asbaabaha noocaasa baynu odhan karnaa iyo kuwo kaleba waxay keeneen in dad culimadii xataa ay ku abtirsanayeen ay khilaafaan. wallahu aclam. أيها الإخوة والأخوات، انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته، مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.